ixtiraam gabadha ama uga tag kan adiga kaa raganimo iyo karti badan haddii uunan qalbigaaga u rajaynaynin kuwa kale khayr ogow adiguna kuuma imaanayo khayrka xanuun ma dareemayo ilaa qofka ahaa mid oofin badan in ka badan inta waajibkiisa ahayd maxaa yeelay kuwa la dhaawaco waa kuwa wanaagsan kan aan la dhaawicin ee dadka dhaawaca waa midka xun balse qofka wanaagsan mar kasta isaga ayaa la dhaawacaa oohintaada iyo qosolkaada waa dhaxalkaada yacni waa waxaad adigu milkisay oo aad hantisay ee ha ka yeelin inay ahaadaan gacanta qof kale yacnii uu qof kale kula xukumo farxaddaada ama murugtaada ha isku dhibin sidii ay kuu fahmi lahaayeen dhammaan dadkoo idili way ku fahansan yihiin qofka aad tahay balse waxay iska yeelyeelayaan sidii kuwa aanan ku fahansanayn oo kale ee u daa dadku waxay doonaan ha kaa fahmaane keliya adigu ahaw mid wanaagsan.